Farbiloodkiisay ahayd igaarkii joogayaan ahe amuursa waa ka weyn tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nimankan dhalinyarada oo leh afar biloodkiisay ahayd aan rabaa inaan xoogaa laba kelmad dhaho. Marka horta nala dhageysto waxaan ka hadlaynay inaad si aad u fahantiin cidda aanan hor u ogeyn. بان بدنا ayaanta inay u eg tahaan arkaa ku yahay wallahi afar biloodka wax loo xiisamay ku dhaha afar biloodkiisay ahayd igaarkii joogayaan ahe amuursa waa ka weyn tahay arrinkaasaad u aragtiin niman soo dhawaada dhalinyaratiin afar biloodka waxaad u haysatiin sheeko xariiro ama sheeko ciyaaleed laakiin afar biloodka wax mudnay in la xasuusto xataa ma ahan waxaan idin sheegayaa horta dhibaatada meeshaas ka dhacday anaga soo joognay waa joognay adinka waa la idinkaga sheekeeyay labada dhinac oo haystana miihi midkood marka ana waxaan idin sheegayaa oo si aad u fahantiin afar biloodkii dhibaatadii dhacday horta cid maanta libin ku sheega karto haba yaraatee ma jirto sababtoo ah afar biloodkii wuxuu ku dhamaaday aaga oo ka bilowday bas sababtana wax kale maahana waxa la yiri dagaal magaalo darbiga ku gambad ma dhaafo marka dagaalkaas sida darbiyada loogu gambanayay heer waxa la gaaray la yiraahdo arkala dhacsha yeertay xabad joojina lagu dhawaaqay dibna la isugu soo laaban waa la isku daalay dagaalka xabad lagu wado iyo risaas lagu wado iyo hisaad lagu wada la waayay laakiin qasaarada meesha ka dhacday ma la socotiin qasaarada meesha ka dhacday hadaa hal idin kugu soo qaado horta dhibaatada ugu badan waxay ahayd madaafiicda dhaafaya goobaha la isku dagaalayo ee dadka masaakiinta ku leeyanayo dhalinyaro badan oo idinka daadiina ahay ama markaas idinka yaray oo adduunyadan rajo ka qabay inay ku noolaadaan ay wax ka qabsadaan ku nafweey kuwa badan oo daadiina waqtigaas ama idinka sii yaraa ee adduunyadan rabay inay xoogooda wax uga soo saartaan ku naafoobay hooyooyin badan ku gablamay hooyooyin badan asay loogu saaray rag badan islaamihii ka dhinteen oo ilmihii rajo ku korshay wax aad u foolxunay ahayd libin la sheega maantana labada dhinac cid gaarta ma lahayn inuu dhiigaas taatay magaalada burburtay ma ogeey wax kale ma lahayn rag dagaalka ku jiray marka aniga waxaan marxaati ka ah oo lay weydiiyaha aakhiro nin labada gacmood ka go'an maxaa la yiraahdaa oo jaadka afka loogu guro nina intuu jabsho asaagiisa oo jaadka afka ugu gura oo dagaalka ku naafoobay ninkaas waxa la igu yiri markii la yiri maxaad ka faa'iiday dagaalka wuxuu yiri markaan u laabanay dadkii aan u dagaalameynay waxay yiraahdeen maxaa la yiraahdaa waxaan idin dhaano oon lugahay gacmaha ahayn ma jiraan iska baxa marka niman yahow dhalinyaratihiin dagaalkaas in la xasuusto xataa ma mudno wax qurux badan ma ahayn wax aad u foolxumo ahaa dhibaato dhacday ahayd hadaa rabtiin inaad kaftantiin wax kale oo aad ku kaftantiin raadiye wax kale oo aad ku xifaaltantiin raadiye idinka kaliya ma socoto fariintaana cid kasta oo ku fikirayso afar biloodka inuu micno lahaay ayaan u sheegaya hadaa aniga aaminaynin bal dadka waaweyn oo micnaha leh oo maskaxdooda fadhido oo waqtigaas joogo wareysta way faanteen Soomaaliya marka waxaan inta iska deysin Soomaaliya wiligeed dagaalkaas mid lamid ah uma noqon doonto experience-gaas waa la soo arkay qasaare iyo faa'iido wuxuu leeyahay waa la soo arkay marka mid u eg xataa ma dhici doono hadaad ku fikiraysan marka wadankan dhalinyaradiisa tihiin idinka ma ahan dadka u fikiri lahay afar biloodka soo ahay in loo ekaado idinka ma ahan waxa tihiin jiilkii idinka horeeyay wixii ay qaldeen dadka sixilaayatiin wadankan fursado badan oo idin xayirana jiro dadka hagaaji lahayatiin marka maskaxdiina ha shaqeyso adii barak